safaaradda horta dalka Mareykanka safaaradda waa inoo ka fureed awal waa ka jirtay safiir ay noo joogay bishii maxaa la yihahdaa sanadkii 2015 ayaa safaaraddii dib loo furay 24 sano kadib wixii maalinta 27kii maxaa la yihahdaa bishii la soo dhaafay September wixii dhacay waxay ahayd madaxweynuhu uu dib u furay madaxweynuhu furay waxay ahayd in ay safaaraddu heshay markii ugu horeysay taariikhda Soomaaliya guri ama xafiis ay safaaradda Soomaaliya dowladda Soomaaliya ay ku leedahay Mareykanka waxaa jiri jiray deegaan aan Mareykanka ku lahayn oo layna ka xaraashay markaynu ilaashan kari weynay laakiin Soomaaliya weligeed kuma yeelan Mareykanka xafiis iyadu leedahay oo dhulka iyo guriga Soomaaliya gadatay weligeed kuma yeelan markii ugu horeysay ayay hadda noqotay taas ayuu madaxweynaha iyo wafdiga la socday iyagoo New York u jooga shirkii qaramada midoobay shirweynihii qaramada midoobay sanadlaha ay u tageen inay soo furaan markii wixii la furayay wuxuu ahaa gurigii safaaradda waxay ku jirtay ijaar meel yara ayay ijaar uga jirtay maanta laakiin guri iyadu ay leedahay oo weyn oo 10 qol ka kooban ayay Soomaaliya leedahay waxaa mahad deeda iska leh amaanteeda madaxda xukuumadda joogta madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre oo runtii aad ugu dadaalay oo markaan u sheegnay baahida aynu u qabno safaarad maalin kasta guri ijaarkiis nala ku ciriiriyo lacag u qoondeeyay kuna dhiiraday culays kastoo jira in ay dhulka gadaan safaaraddu muhiimadda ay leedahay dhulkaas la gaday safaaraddu muhiimadda ay leedahay waynu ognahay hadda waa safaarad kasta xiriirka dalka ay joogto ayay dalka ay ka soo jeedo u xoojisaa dadkeedana waa u adeegtaa laakiin waxa hadda soo kordhay faa'iidada ay leedahay dhulkan la iibiyay la gaday waxa weeye in safaaraddeenu Washington ay tahay mid degan oo ku shaqeysa dhul iyadu leedahay guri iyadu leedahay xafiis iyadu leedahay oo aan ka baqayn in maalin kasta la daba socdo ijaarkeen iga bax meeshan waana ka guurtaa yani ciriir badan oo safaaradaha xafiisyada ijaarka degani ay la kulmaan dowladda Soomaaliya sidee ugu faa'iideysan kartaa taageerada Mareykanka dowladda Soomaaliya taageerada Mareykanka waana ka faa'iideysataa oo xag siyaasadeed xag amni xag dhaqaale way ka faa'iideysataa waana sii kordhin kartaa markastoo xiriirku sii fiicnaado safaaraduhu ay safaarado xooggan inoo joogaan iyagana safaarada dalkeena u joogto inaguna safaarad xaggeena ku leenahay si fiican u shaqeynaysa xiriirka ayaa sii xoogsada aad uga sii faa'iideynaa waxyaabaha aynu ka faa'iideysano Mareykanka waxaa ka mid ah iyagoo ina ka taageera xagga amniga la dagaalanka maxaa la yihahdaa argixisada tababarka ciidamadeena aad ayay nooga taageeraan oo aanu abaal weyn ugu hayno waxay naga taageeraan xagga siyaasadda maalin dhaweyto oo Kenya ay keentay waxa ugu dambeeyay maalan resolution ama qaraar ay rabtay in ciqaab lagu adkeeyo qaybo ka mid ah Soomaaliya dad Soomaaliyeed iyo hay'ado Soomaaliyeed oo halis gelin lahaa shaqadooda Mareykanka wuxuu ka mid ahaa dalalkii ugu horeeyay oo arrintan naga garab istaagay oo diiday in qaraarkaasi uu fulo marka Mareykanku siyaabo badan ayaan uga faa'iideysanaa xiriirkooda iyo taageeradooda dhan kasta qorshaha xiga ee wasaaradda ay doonayso maxaa ka mid ah
qorshaxiga waxaa ka mid ah safaaraddu dabcan shaqadeedu waa joogto oo mar kasta waxaa la filayaa sida ummad kasta oo nool ay samayso in horumar lagu sii taagsado. marka sida uu madaxweynuhu kaga dhawaaqay markuu furayey xafiisyada aan ka gadanay Mareykanka, waxaa la rabaa in safaarado hor leh la furo oo dhulkooda aynu anagu leenahay laga furo. waxaa ka mid ah in safaarado horeeto oo meelo fiican oo adduunka nooga yiilay inagu ku lahayn oo laakiin burburay oo baabaasan in aada loo hagaajiyo. waxaa ka mid ah xiriirka aynu dalalka adduunka la leenahay uu Mareykanku ugu horeeyo in aada u xoojino oo noqdo mid maaragtay faa'iido badan dadkeena iyo dalkeena u keena. waxaa ka mid ah in heerka diblomaasiyiinta Soomaaliya kor loo qaado oo in xiriir dalal badan kala leenahay arrintaa. waxaa ka mid ah in la furo dhismayaal cusub oo dowladdu ama dibadda ku leedahay ama gudaha ku leedahay. matalan waxaa mar dhow dhammaystirmaya maxadkii diblomaasiyadda oo wasaaradda oo mar dhow la furaya insha allahu bishaan gudaheeda. wasaaradda nafteeda waxaa ku socda dib habeyn iyo dib hagaajin dhismaha ama ha noqdo systemska lagu shaqeeyo ama ha noqdo shaqaalaha tababarkooda iyo xoojintooda iyo dhiirigelintooda. marka arrimahaas oo dhan ayaa wasaaradda u socda. waa mudan tahay. waxaa kaloo iyaduna muhiim ah oo muujinaysa xiriirka labada dal ee sii xoogsaday in safaaradda Mareykanku iyaduna ay dib uga furanto magaalada Muqdisho dalka Soomaaliya, magaalada madaxda Soomaaliya. sidaad ogtihiin safaaradda Mareykanka waxay ka guurtay xamar 91dii. intii ka dambeysay safaarad Mareykana ma joogin Soomaaliya. waxaa safaaraddu ahaan jirtay safaarad ma ahayn, waxaa jiri jiray wax la yiraahdo mission, yani ergo ama koox yaroo Mareykan ayaa waa joogi jiray Nairobi oo halkaa ka ilaalin jiray danaha iyo xiriirka danaha Mareykanka iyo xiriirka Soomaaliya Mareykanka. 2018 kor ayaa loo sii qaaday. waxaa la gaarsiiyey in ay dalka ay xoogaa ka howlgalaan. shalay shirkii iskaashiga Soomaaliya dalalka Soomaaliya taageera saaxiibada lah oo halkan lagu qabtay xamar lagu qabtay, waxaa safiirka Mareykanku Donald Yamamoto uu ku dhawaaqay in ay safaaraddii Mareykanku toos si buuxda uga furantay magaalada Muqdisho. marka waxaa isku soo beegmay oo wax lagu farxa ah oo muujinaysa xiriirka sii xoogsanaya iyo Soomaaliya maaragtay mowqifkeeda iyo yani heerkay dunida ka joogto oo aada u sii xoogsanaya. waxaa laga garan karaa inay isku soo beegmaan iyagoo Mareykanka oo safaaradoodii ka furtay xamar si buuxda iyo Soomaaliya oo markii ugu horeysay dhul ay iyadu leedahay oo safaaradeedu ka howlgasho ka gadatay magaalada Washington ee caasimadda dalka Mareykanka. wayahay wasiir, ugu dambeyn safaaraddan Mareykanka hadda Soomaaliya ay ka furteen faa'iido caankee ayaa ugu jirtaa ummadda Soomaaliya? waxay ugu jirtaa sidii aan kuu sheegay daato markaan ka hadlayay safaaradaha faa'iidadooda inay xiriirkii Soomaaliya iyo Mareykanku sii xoogsado. awal matalan markaynu Mareykanka wax uga baahan safiirkooduna lama deganin, Nairobi buu joogay. waxaa marka kordhay mana aha markii safaarad wadankaagii dalkaagii markay safaarad joogi karin sababo amni daraadeed waxa weeyaan sumcadaadu ma sareyso. marka hadda in safaaraddii Mareykanku usoo guurto xamar oo si buuxda xamar uga hirgasho waxay kor u qaadaysaa kalsoonida lagu qabo amniga Soomaaliya. waxay kor u qaadaysaa sumcadeena iyo maaragtay dowladnimadeena heerka ay soo gaartay oo muddayna ka dayacnayd. waxay dhib yareynaysaa in qofka Soomaaliga ay wixii uu safaaradda Mareykanka uga baahnaa uu aadi jiray awal Nairobi in uu xamar
uu ka helo ama visa ha noqoto ama wax kale ha noqoto. marka waxay toos u dhacaya xiriirkii dadka Soomaaliyeed iyo safaaradda Mareykanka ka dhexeeya ayaa noqonaya mid dhow oo toos ah. xogta dadka Mareykanka ay ka hayaan safaaradda iyo hawlwadeenadeeda iyo diblomaasiyiinta Soomaaliya ayaa noqonaya mid xaqiiqada u dhow maadaama ay wadankii joogaan oo aysan ku tirkuteen ku shaqeynayno meelahaas ka bowsanaynin warka. marka waa sababaha ay safaaraduhu u jecel yihiin inay dalka ay ka howlgalaan ay joogaan. faa'iidadeedu aad bay u badan tahay, dhan siyaasad, dhan amni, dhan dhaqaale iyo dhan sumcadda dalka oo kor u kacaysa. waa mudanta Galcad Media Galcad Media News